boqorada salaadiinta uqaasha gobolka Gabiley ayaa maanta si jaayad ku qabteen hotel Boq ee magaalada Gabiley wax kama jiraan ku tilmaamay in deeqdii waxbarasho ee Soomaaliland ka heshay dalka Itoobiya gobolka Gabiley looga badiyay gobolada bariga hadalkaasi oo hore uu sheegay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Ciro waxaana madax dhaqameedkan gobolka Gabiley ka soo jeeda ugu baaqeen gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani inuu gobolada dalka Soomaaliland dhax u ahaado iyagoo ka hadlayna waxay yiraahdeen wuxuu ninkii ahaa nin da'yari dambaabiyaha galo diradiraaleeyna buu yiri waxbarashada deeqda ee Itoobiya laga helay ee scholarshipka Gabiley waayo wasaaradda baa joogta waxa jooga wasiir wasaaradda waxbarashada bixisoo qaybisa wax aqal hoostii lagu bixiyo ma aha gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan waxaan ku leeyahay kolkaad leedahay gobolka Sanaag iyo Sool iyo Togdheer deeqdii waxbarasho waxba kama ay heline Gabiley baa la siiyay kolkaad leedahay aanay gudoomiye wax jiran ahayn sidaas miyaanad adigu gudoomiye u wada ahayn xisbiga maanad madaxnimo gobolada ka wada doonayn maanay Soomaaliland isku ka mid ahayn ma gobolada gaara ayuun baad ka doonaysaa doorashada madaxnimo ku noqonaysaa waxaan ku leeyahay gudoomiye adigoo salaaman bedel siyaasadada gudoomiyaha u tahay oo xisbi qaran baad ka mid tahay xisbiga qaran madaxnimada ka doonaysaa oo dalka Soomaaliland oo idin musharax baad u tahay hadda musharax u tahay Gabiley ee Carabka sababtoo yarjiida kuma wanaagsana maantana waxa ku leenahay Gabiley ka daa xagxagashada ninka burca ka soo baxa ka xirigaaba ka soo baxa ka berbera ka soo baxa waa isku kaayamid ee madaxweyne noqoto si odayaashu sheegaan ama aad madax noqoto waa laga yaaba waa dhici kartaa ama waa ugu soo dhowdahayba anagoo ku han weynin hadiye jeerado Soomaaliland dhulka la dhacaya ama ku mareysan ama la dhacayo ma ku aragnaa war in adeero korto soo soco yo tagaya yuuda iyo laxbal la boodayay iska daa maaha wuxuu qabay laakiin lagu umaleynaa lagu aflagaadeeyay qofku gobolku wuxuu qabo ee uu qaato hadii lagu sheego laguma ahayn laakiin waxaan u qaadan hadii lagu sheego aflagaado sidoo kale madax dhaqameedkan gobolka Gabiley waxay maanta si kulul uga hadleen gobolnimadii gobolka Gabiley maadaama ay Gabiley tahay gobolada ugu ballaaran xagga wax soo saarka gobolka Gabiley ha helo xaqii uu u lahaa mucaawinooyinka iyo mashaariicda dalka ka socda war sidii awal bay ahaan jirtay ee lixdii gobol ay Gabiley ugu jirtay wixii gaarka loo siinay Gabiley ha hesho mashaariicda gaarka intii ay socday ee dawladii hore ee madaxweyne Siraayo 7 sanadood waxaan maleeyahay mashruuca Gabiley hal mashruuc oo ka soo baxay oo nooc uu doonaha ahaadee mashruuca sanduuqaasa ma soo bixin dawladii hore waxba kama aanan helin mashaariicdaas dawladdan maantana waanu eegaynaa 7 sano hore aanu aamusnayn maanta sanadka kuwada ku hadana waxa leenahay mashaariicda horumarinta qaybtii Gabiley intii hore ka sameertay suugtana way doonaysaa tamaatana way doonaysaa ninkii cigaal 6 gobol iyo Gabiley buu yiri waan halowsanahay xaq iyaga yaan boordoobijahna liqina sida boqorka kaleba yiri war xaq iyagana 6 gobol iyo Gabileydii aan ka helo maruuja horta in kool lagu noqotay ayaad moodaa laba gobol waan kala nahay magaca iyaguna uu ku horeeyay gobolada iyo degmooyinka la baxshana 6 gobol iyo Gabiley baa la oran jiray Guuleed Ali Ibraahim Kacse Sab TV gobolka Gabiley